uroonaanta dadka. waxaan kuu soo gudbinayaa sheeko xigmad leh oo ku saabsan wax u tarka dadka. Gandhi ayaa hadda ka hor raacay tareen. markuu lugta hore la helay ayuu tareenkii dhaqaaqay. kadib mid ka mid ah kabihiisii ayaa dhulka ku dhacday, mana aysan fududayn inuu kabta soo qabsado ilaan tareenku joogsi ma lahane. Gandhi wuxuu durbadiiba ku dhaqaaqay inuu kabtii kalena ku tuuro halkii ay tii hore ku dhacday. dadkii tareenka saarnaa ayaa aad ula yaabay falkaas, una qaatay Gandhi inuu caqli daro sidaas u sameeyay. Gandhi waxa ay weydiiyeen waxa kabtiisa oo ka dhacday ku kalifay inuu tii kalena ka daba tuuro, sidaasina ku kaba beelo. Gandhi si sahlan buu ugu jawaabay, wuxuuna yiri kabtii hore soo ma cashan karo oo ma awoodo, waxaanse awoodaa ninka Hindiga ah ee kabtaasi heli doono inaan ku caawiyo inuu tan labaadna la helo, oo sidaas uu laba kabood oo ku socosho iyo labisgal ah u helo. haddaba waxay tahay dulucda qisada. waxaa jira waxyaabo yaryar oo aad adiga haysato, balse haddii uu qof kale heli lahaa u buuxin lahaa meel weyn, wax badanna ku qabsan lahaa. sidoo kale walaalayaal, iscaawinta iyo naxariisashada dadka waa mid ka mid ah astaamaha lagu garto qofka guusha u socda. iscaawintuna waa mid ka mid ah furayaasha kuu sahlaya inaad guul gaadho. haddaba walaalayaal, aynu ku dadaalno insha Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.